dadkii ilaahay way ka tageen labadan neef oo dhitaw oo haraabo hoomu yahay xaqaaba lagiyo hoomu inuu baxdo abaarta ku dhufatay deegaanada xeebaha Soomaaliland ee gobolada Saaxil, Salal, Maroodi Jeex iyo Awdal waa mid marba marka ka dambaysa ka sii daraysa. xoolaha ay haysteen qoysaskaasi ayaa maalin kasta u dhimanaya tarab maadaama ay abaartu laba jirsatay. kuwooda ruqda ee markaasi tahri waaya socodka waxa lagaga tagaa goob cidla ah. laba neef oo aad u ildaran oo markaasi kici kari lahaa oo wadada ag fadhiya maarigaaga kamid ahaayeen ha walaal aragay ka hadheen labadaasi way tal waxay u hadheen labada ama inay maalin walba 20 neef man ka yimaada oo ay abaartu saa u saameysay ugu taal u hadhay xitaa biyaha dameeraan ugu rarnaan ugu geynaa halkay ku hadhaan bood adduunyo weeyna waan ka soo aqla beela marka way dhimanayaan way dhimanayaan arigu qiyaas ahaan 30 cisho ugu dambeeyay ari intee leeg baa ka dhintay oo abaarta iyo gaajada u dhintay iyo yaraanta waxaan u malaynayaa inay 40 neef noqonayso 40 neef inta la joogo uun baan ka hadlayaa 40 neef noqonayso maalin walba waxun baa ka hadhay oo dhimanayo waxa dad xira ku soo noqonaya ma wixii kolka ka hadhay taal sidoo kale waxa halis ku jira nolosha qoysaskaasi gaar ahaan kuwooga maatida caruurta iyo haweenka deegaanada xeebaha ayaa ay nafaqa darrabaan soo food saartay waana mid sahayan karta nolosha dadkaasi waxayna u baahan yihiin gurmad joogto ah inta raxmaadka eebe laga gaadhayo الله نبو نحمل حبيبه مدينة عبدي بقى يرادا تولد هوك اللي يرادا أنت جوجا اللي كتير حوا وربان هاي ساكا ميل الكاسو ده حدا كسو جوري بيبان من ما هي هالكي أم كسر دعين بلا بيان كتاعنا هاي مكوان أمنا هاي وبتكاو تقيق ده هاي ينسيته لو ما كان الله ما نبلا نفقنا أنا وانوتا بلا ديك بيجا هارين وكوا تاعنا وحكوا قلامي من ما هاي بيلام بيجا قدر ولا وين كوا ده هارين gurmadka degdega biyo u daran iyo raashin labadaas way u diray hidde guri baa u daran iyo biyo labada laga marsamayni waa biyo iyo raashinka weeyaan waa ka caafimaadna ma hayaan halkan imika cishada way gabadh baa ku umushay way dhiig baxdo orba dhiig joojin laga waayo way caafimaad male meesho waxba ma yeelaan waa qaxarka baawrka dalbatay argeysa kaaga ma sokoyaan Djibouti baawrku intuu soo socdaba way dhiig baxaysaa inta ku dhimatay inta la qaaday la ambalaasay labadaas laga weeyaan waa ka in adeero aad bay u liidan nafaqa darro way jirtaa xoog bay nafaqa darro u jirtaa caruurta iyo dumarka ku badan tahay dadka waaweyn labadaas ay ku badan tahay xumad way jirtaa xumad baa haysa xumadan dadka haysa xoolaha haysa dadkana way haysaa cali oo kamid ah qoysaska degan Bildaaley jiraariya ayaa kaga leeday intii ay abaarahani jireen xiryaha qaarkoodna waa ay haawanayaan oo xoolihii ayaaba ka dhamaaday waa arkaysaan oo nala arkaysaan xoolaha baqtigooda geed ka saaran waxaan u saarnay dawaanu iskaga weecino hadii aan dhulka dhig lahayn bahalaha yimaada ee cunaa bahalaha aakhirkana caruurta cunaya marka waanu iska basrin oo wana ka inta saaran dawa abaarta xoolaha gaaja laysay iyo abaarto abaar laba jira xoolaha ay soo laysay waa abaar wax xoolaha la geed walbana way saareen giga walbana way yaala aniga xoolaha iga baxay imka tiradoodii oo sugan idin sheeg baa laakiin boqol kor bay u dhaaftay orgigaas waa orgi gaariga ugu weyn xoolaha wixii kalena way dhinteen noocaas daba u dhiman jirin in badan buu waa ki ugu nolol dambeynayay waa orgishan jira laba habeen buu noolaa marka cidina ma wax laga bariyayna waa la garan waa ka baqtiyay tirada baqtiday aniga xoolaha adu reeraayga halkan degan marka nin walba wixii 3 meelood laga dhigo 2 meelood saasay u baqtiday way baqtiday intii kalena waa tawaabka hoos fadhida waa ku ayagoo nool waa ka hoos fadhiya baadna ma hayaan biyana ma hayaan calafna ma hayaan dadkii baaba imika xoolihii daba socda haddaan ilaahay ka soo gaarin markaa hay-adaha waxaanu ka cabsanaynaa in maadeeraya imika xoolihii hadalkoodu waa dhammaadayba waa in dadka lagu soo gurmada hay-adda khayriga ee Al-Raxma ayaa gurmad biyo dhaamisa gaarsiisay qaar ka mid ah deegaanada xeebaha Soomaaliland
waxaana ka mida dadka ka faa'iidaystay biyo dhaamiskaasi kuwa ku nool deegaanada Foodka, Bildaaley iyo Xayaabley waana kuwan iyagoo hay'adda Al-Raxma u mahadnaqaya. hay'adda Al-Raxma ee noo keentay biyaha socda anaga aad u ooman yaan mahadinaynaa khayr Allah siiyo waxaan uga baahanahay in waxa wax ka kordhan inay noo keento bariya diinba waliba oo meesha aad baa ugu daway waynaga arkay biyaha inoo keenay maxay hay'adda la yiraahdo Al-Raxma maalintii hore baaqi fiicnaan dirnay si fiican bay nooga soo jawaabtay biyo inoo keentay biyihii si fiican baa naloo soo gaadhlay oo dhaqsale waxaan doonaynaa biyihii waana noo keenay in maxay hay'adda nala ogaado oo baadkiina naloo soo gaadho ayaan doonaynaa inta raxmaadka Ilaahay imanaya Ilaahay naga soo jabinay abaarta waxaan doonaynaa in la ogaado oo aan la ilaawin oo markasta laga warhayo ayaanu doonaynaa xoolina sidii un bay nooga jilicsiin xayeeshna weeyaan sidii bay xayeeshu yihiin marka waxaan doonaynaa maxay hay'adda baad iyo biyaba in maxay hay'adda naloo si fiican loogu keeno waana u mahadnaqaynaa hay'adda Al-Raxma Ilaahay halkii ay ka soo saartay Ilaahay wax khayr qaba inuu ugu bedelo u galiyo biyaha deeqdii ugu horeysay biyaha Al-Raxma noo soo keentay imika ayaa noogu horeeyay wax deeq soo gaara ayagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Ilaahayna waan ugu xamdinaqaynaa. Mukhtaar Mursal Xiin, Home Cable TV, deegaanada xeebta Somaliland.